بسم الله shalayto waxyaalaha aan aad ugu farxay waxa kamid ahaa walaalaha hadda ka hor markaan imaanayo Muqdisho aan la kulmay qaar kamid ah Nairobi maraan maray labaduba waxay ii sheegeen marka hore waxay ka caawin jireen xagga awlaad la'aanta halka dhakhaatiir badan ay tageen mudana ilaa 7 sano wax awlaad aysan helin Ilaahayna uu siiyay subhanahu wa ta'ala kadibna ay iigu imaadeen al-shifa xarumada kala duwan laanta Nairobi iyo tan hadda Muqdisho ku suganahay baaritaana ay mareen daawooyin aan siiyay herbal ah kadibna Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku risaaqay awlaad rabbi baa bixiya subhanahu wa ta'ala xawna hadii jiraan waxa jira asbaabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qofku u sawro waxaan ogeysiinayaa dhamaan horta walaalaha marka koobaad inaan ku suganahay Muqdisho oo aan joogi doono maalmo kooban hadii ugu badato 2 maalin baan sii joogi doonaa hadii ugu badato 3 ayaan joogi doonaa halkaas oo aan isleeyahay insha Allah ta'ala walaalaha hadii Allah wada loo ugu shaqaysid maalmihii ugu dambeeyayna aan ku sugnaa Muqdisho walow bilooyinkii ugu dambeeyay safarka kala gedisan aan ku jiray xanuunada al-shifa ay daawayso Ilaahay wax daaweeye ama aan isleeyahay Allah Ilaahay ummadda waa u faa'iideysan waxa kamid ah dadka inta badan ka cabanaya xagga awlaad la'aanta oo kale hooyooyinka ilmuhu inta badan ka soo dilmaan iyo aabayaasha sidoo kale iyagana maartay isbaamiyadooda iyo dhanka shahwada socodkeeda iyo aad uga yar yahay khatar far badan na tagay sanado badan ayuu yahay dhaqtar kasta waan u tagay soo marka daaweyn iyo soqor in daaweynkii wax waa ii tirwaayeen maxay ahayd shifa aan la xiriiray daawooyinkana Ilaahay ugu caafiyay Ilaahay ayaa mahad iska leh Ilaahay ugu caafiyay ayaa mahad iska leh xanuun marmarka qaarkood walwal baa qaban jiray ama waa cabsan jiray sirrta ka soo boodi jiray axyaana waxa sameyn jiray baqdina ay gali jirtay markii dambe waxa igu dhacday maxay ahayd inaan marka sanka marmar dhiig iga imaan jiray afka madaxa meelaha waxa iga buurnaan jireen yar oo dhinaca maaragtay madaxa iga buurnaan jireen korka iga danqan jiray madaxa Ilaahay fadligiis wiilashiisaan dhageystay may xanuunka insha Allah idin dhameystiro waxa igu dhici jirtay marka meeshaan waxba iga boodboodi jiray xudunta hoosteeda oo caloosha gudaheeda ah waxba iga boodboodi jiray riximka inay taa umaleynaya guriga iyo ninka iyo waxa dhan ma jeclayn buuq ma nagu furnaan jiray mar walba aniga iska buuqsanaan jiray xanaaqayb saaid buu ahaa markii dambe falilaah alxamdi waxaan dhageystay walaalahan baan maartay la xiriiray Ilaahay ku mahadsan Cabdixakiin aan la xiriiray Cabdixakiin daawooyinka ii soo diray oo aad iyo aad ma sha Allah Ilaahay khayr fara badan ha siiyo daawadii koowaad markaan bilaabay waxaan nagu dhacday wadaadkii baa naga xanuunsaday wuxuu keenay buuq inuu maartay xanaaqo shaqada diido guriga joogo maalmo dhan nagu xanaaqo ila si kala nagu noqdo daawadii kale markaan dhameystay tii koowaad ma sha Allah everything way fiicnaadeen waxaa jirtay gabar walaashay ah oo muddo 16 sano ah reer lahayd xanuunyo badan oo aan la soo koobi karin ayaa gabadha hayay dhakhaatiir badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ah waan geenay sida Kenya oo kale dhakhaatiirta u qaalisan waan geenay Hindiya oo kale mar baan u dirnay caqabado badan ayaan kala kulannay qarash badan ayaan galnay waxba Ilaahay nagama garanin daawadii annagoo iska sabarnay gabadhii muddo 16 sano ay reer lahayd 2019 kan bilaawiisi ayaan waxaan isbaranay al-shifa ayaan isbaranay waxaan oga waramay xaaladda gabadha iyo xanuunyaha gabadha ayaan oga waramay hadii aan oga waramay daawooyin aad u badan ayayna siiyeen waxa kamid ah xanuunyaha gabadha hadii ay idin dul maro caadada oo kale gabadha aad ugu dhib qabi jirtay inay muddo badan caadada waaso kadib ay hesho marka qaar ay ku dhaco istaagi waaso Ilaahay kuma naaraata waxaan ay dhahaan musiibiyada ay dhahaan oo haweenka ku dhacdo dabeesha inay maxaa dhigi jiray abtay oo caloosha ay ku cuni jirtay xanuunyo jirka iska xanuuni jiray gabadha xanuunyo badan oo aan la soo koobi karin ay u badnaayeen laakiin caadada iyo musiibiyaanka way hadda noo muuqday u badnaayeen iyo xanuunyo badan oo qarsoon hadda anaga aanan marka ayada aanan dhigi karin xanuunkan hayo dhakhtar kasta markuu baaranay wax ma qabto ayaa u badnaa kadib waxaan isbaranay oo wada shaqeyn sameynay al-shifa ayaan isbaranay
Al-Shifa markaan u warranay gabadha xanuunyadeeda uga warranay gabadha markaa ayada Gaarsi ay joogtay laakiin anaa Nairobi joogay xanuunyada gabadha haddaan uga warramay waxay dhaheen gabadhan waxaa haya dabeel daawooyin dhowr oo 3 bilood soconaya ay u qoreen daawooyinka ayaan gabadhi u qaaday baskaan u saaray way qaadatay 3 bilood ayay isticmaalaysay daawooyinkii markay dhammaadeen alxamdulilah ilaahay wuu caafiyey gabadhi daawadii ay siiyeen walaalahan Al-Shifa ayuu alle ku caafiyey waxaa ka mid ahaa istaalka hadda Abba Hill oo kale markaan tagnay waxay nagu dhaheen gabadhan uur ma yeelan karto waxaa la sameyn bay dhaheen biyaha wadaadka ayaa la qaadi shawada wadaadka la qaadi kadib daawaa lagu dari waa loo beeri bay dhaheen beeritaan qaab kale oo gabadhan ay uur ku yeelan karto oo Abba Hill istaalka la dhihi jiray ayaa saana dhahay oo Kenya ku yaalo marka qaab kale oo uur ku yeelan karta ma jirto waa ilaa loo abuuro lacag 500 oo kun aan baxsanaysaan marka waxaan dhahnay Allaan tala saaranaynaa wax annaga hallo uu noogu talagalay waan mayne waxaan abuuranayna ma lahan marka Al-Shifa aad baan maxaa dhihi jiray ugu mahad celinay Allah aad u mahadsan Al-Shifaana aad baan ugu mahad celinay ilaahay baa daawadoodii iyo wixii ayna daawooyinka ayna siiyaan ilaahay aad buu noogu daa waxaan leeyahay marka dadka xanuun ugu dhahan kili loo bixiyo iyo in ilaa weligiis la dhaqo ayay ahaanaysaa kili bixitaankeeda culeyskeedan waa iska garanaysaan adii dhaqitaankii aan ku bilownay kadib dhaqitaankii markaan ku bilownay alxamdulilah muddo kadib dhakhtarkan arag daawadu na siiyey markuu daawadan na siiyey ayaan si fiican museyga waxaan u maleeyaa muddo 3 isbuuc ah ayuu isticmaalayay muddo 3 isbuuc ah ayuu daawada isticmaalayay alxamdulilah daawada markuu 3 isbuuc isticmaalay aan ku celinay istaalkii baaritaan kale aan ku celinay museyga waxaan u dhaheen museyga kalihiis waa fiicnaadeen dhaqtaan uma baahno maxaasan ilaah subxaanahu wa tacaala caafiyaan ku dhahnay ilaaha mahad iska leh waatan waraaqda ugu dambeysay had baaritaankiisii ahayd tana hadda ugu dambeysay waraaqdan ayaa lagu soo baaray alxamdulilah maasha allah ilaah waa mahad iska leh hadda muddo 2 bilood kalihiisa lama dhaqin waraaqdan waa tii testiga ugu dambeysay aan ka soo qaadnay bishan hadda aan ku jirno December taariikh 4 aan ka soo qaadnay dhakhaatiirta dhan waxay nagu dhaheen kalihiisa maasha allah way fiican yihiin aad bay u fiican yihiin xanuunka markii hore xanuunkiisa wuxuu ka soo bilowday in prostate uu uga dhaco xagga kaadida prostate cancer uu uga dhaco xagga kaadida kadib suu u socday kaadidu marka hore uga dhacay xagga saxaradu gaaray kadib asoo beerka markaas ku sii socdo oo wax yar uga dhan feeraha gaaray dhakhtarkan helnay alxamdulilah ilaahuma mahad iska leh haddana museyga caafimaad lugihiisu ku socda musqusha lugihiisu ku tagaya ilaah baa mahad iska leh ilaah subxaana bacda alxamdulilah ilaah subxaana wa tacaala mahadaas kadib dhakhtarka nagu caawiyey haddii waxaan leeyahay waa jaanis la yaab leh aan halka hataa ilaah subxaana wa tacaala inoo qoray daawo sidoo kale waxaa jira sanadaba ujeedaan dadkan hadda hadlaya qayb ka mid a qalitaanaa loo qoro in la qalo oo maaragtay sida hooyadan oo kale 2 laf baa istaabanayay oo la yidhi haddii lagu qalana waa 50-50 haddii kalena allahu aclam daaweyn Al-Shifa ay siisay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caafimaadka bixiya waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a marka qaar aad arkayso waxaa ka mid a inaad arkayso qof quus taagan oo dhakhaatiir fara badan tagay sida India oo kale Kenya oo kale meelo badan tageen oo quus qofkan uu taagan yahay isla markaana qofku uu ka cabanayo xanuuno kala gedisan hadday neerfa tahay hadday gaas tahay hadday kaliya fadhiisanaya tahay kadibna daawo yar inta aan qorno ilaahay caafimaad uu ku siiyo waxaa le marka walaalo fara badan oo cusbitaalo ku daalay baa jira bishaaro ayaan u wadaa insha Allah tacaala inay Al-Shifa daaweyn herbal ah oo laga keenay wadamada hormaray aan ka keenay ay taalo isla markaana shaybaar casri uu yaalo oo dhakhaatiir ay la socdaan baaraysa ayuu xanuun jir ku jira soo saari doonta insha Allah tacaala waxaa le marka walaalaha laga faa'iideysto xanuun kasta aad dareemayso shaybaarada way soo saari doonaan insha Allah tacaala waxaan lagu siin doonaa daawooyinka ugu habboon oo herbalka ah waxaan markaa 2 qodob oo muhiim ah rabaa inaan ka dhawaajiyo fiiro gaar ah midka koobaad waa yeelka aan soconaynin salaada fadhiga ku tukanaya iyo kuwa ulaha ku socdo ku bishaaraysta in leedin kan daawo markaad isticmaashaan ilaahay idinkii aad toos u tukan doontaan kursi damaraad ku fadhiisan doonaan insha Allah tacaala sidoo kale aabayaasha iyagana ka cabanaya xagga gogasho kale ama xagga shahwada inay soo degdegto ama isbaamiyadu ay aad u yar yihiin ama maaragtay xayawaanaadka maniya ay aad u yar yihiin iyagana in loo keenay daawooyin aad iyo aad u tayo sareeyo sidoo kale dadka cabanaya hamadooda inay yaraatay oo suu ahaan jir aysan hayna iyagana waxaa loo keenay insha Allah tacaala daawooyin oo loo keenay wadamadaas xagga herbalka aadka ugu horumaray sida US iyo India daawooyin laga keenay oo ah organic oo qofku isticmaalayo
مدير جودهن إله إذا كي قف ونقنا يقف ما شاء الله يعني آد غيركي سفر حضر قيب سدا ونقنا عليه إن شاء الله تعالى سيده روحان جرنا أنا حين سجوا وحس بدل جركي سايسن كل إيمانيني مركب بشارة يعني الله هيك فهذا يسوي عن هذه أدوم هتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة مقدشة تمد مدين تلا قابلتنا حمر جوتو ضدك مقدشة إيريا دوقة فريدس. مقدشة أرت وقتي هذا يقولي هاي ولا لك أوريها ما شاء الله بركة أو وقتي هذا يقولي هاي صدق بركب بدن وحنفلي أنا سيجو كرينين وقتي هذا يقولي مركب ولا لها كفريدس إن شاء الله تعالى ولو وحنهمنا إن شاء الله وما تيبري إن شاء الله تعالى هذا ما تسنتي نيروبي شقمي أكسي وضربتها نيروبي يدنا إن شاء الله ولا لا اسكت ديوان قليين ولا الخير الله سيء نيروبي يدنا وكسي وضيع إن شاء الله تعالى لمبر كاش عشان ده كم موضوع اسكت ديوان قليل إن شاء الله تعالى وصامريا لح بريمة جودنا إن شاء الله تعالى هذا ما تسنتي